dugsiyada al-irshaad iskuul. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعطي شرفتي قيمة له كسر هذا برنامج كذي برشاد أونلاين والرمضان كريم ما أنت بشوال هي لبعضن بشيء أفراد لبكون يلبعضن أو فصلنا أفرتي بشيء رمضان ونفر بقول يقابي أفرت 10 كيلو ما أنت و10 كيس امتحان صمدقن ما سيدي صمدقن إيه من السياسي وقيمتي استحال hore waxaynu u soo dhignay abwaanka oo ka waramaya waxyaabo dhaqanka la xiriira sida ay dadku Soomaalida ay u lahaayeen xeer beegti kolka ay colaadaha iyo dagaaladu dhacaan dhexdhexaadisa Soomaaliland wanaga indhi dawladnimada iyo dimuqraadiyadda ka sako waxay ku dhisan tahay odayaal oo wada hadal iyo wada noqday dhulkan oo wada hub yar rasaas intii ka soo ururiyeen dadka gacmahoodii rasaastii iyo hubkii ay haysteen walaaliyay oo mideeyay kolkii dagaal sokeeyay dhicin kadib qaybtan wuxuu ka waramayaa abwaanku waxyaabaha dhaqanka loo isticmaalo haday tahay hubka haday tahay aqal Soomaaliga haday tahay gurigii haday tahay fandaalkii iyo weelkii haday tahay maxaan ku raacay ciyaarihii iyo dhaqanka marka qaybtan wuxuu ka waramayaa aqal Soomaaligii hidiyo dhaqankii ahaa maxaan ku raacay ciyaarihii la ciyaari jiray wuxuu yiri saddex ciyaar iyo batar sare u gootiyo beer leelada simiqsado dhaanta sawd macaano murti soocan gaar u leh shaxlay sacab qurxoon oo jaan lagu sarjaray oo saarayda tumatiyo heelo maalka soo duda seelici u kala baxa boqolaal siyaabood mid waliba sarbeeb iyo sifa gaar leedahay xarfo saxati iyo caws kebid sayle iyo xarig harar soo wareegiyo dusha sare la saariyo alol soo kulaaliyo sinta guriga lagu xiro udub iyo xarig soo godan intaas oo iswada suran aqal laga sameeyo masaf tabaq la saariyo xeero sabiiba iyo gorof haan saable iyo dhiili laga tolay sariig iyo sifsif maraah leh iyo caws geed qori far iyo suul sare loogu qaadiyo qudas sor walaaqiyo soo dare fandaalkiyo salbalaaran xeedada haan samaysan iyo weel sancadii dhirteenna ah soo baxaa cadceediyo saqda dhexe habeenkii saacadaad jaraysaba farda orodka siibtoo sida ruux la tababaray qofkuu sida ilaashoo sida ruux la tababaray qofkuu sido ilaashiyo mooyiyo tib siman iyo qarbad nuur la saariyo saad kaydsha iyo oli tilmaan la igu soociyo hidda soo jireen iyo sunnad weeye dhaqanoo intaas iyo siyaadaba Soomaaliba iska leh ereyada macnahooda wuxuu yiri abwaanku sulux waa heshiis markay dadku heshiiyaan ayaa wixii la yiraahdaa sulux baa lagu dhameeyay sibladay waa seegay oo khaldan ereyga simbiiray waa habaabay waa lumay waa khaldamay simbiiray uu ka habaabay wadadii saxda ahayd ama hadalkii fiicnaa qude waa qaad waa qori lagu walaaqo raashinka ama soorta si ay isu dhex galaan dul iyo hoos jarayn waa heensayn waa heeriyeynta faraska awrka iyo wixii la mid ah sariig waa geed cawseed haamaha laga tolo oo ka baxa daaqsimeedka qiimaha furan leh ee dalkeen maro waa geed dooxyada waqooyiga ka baxa geed cawseed ah oo dhiiraha laga sameeyo iyo masafaha laga qoro jooray laga tidco laga sameeyo
sanco waa farsamo jaan waa kabo jaanta iyo jiifka waa batarka lugta la isla helay guurti waa xeer beegti garyaqaan waa xeer dhaadhi arday aan ku soo noqono casharkiin qaybtan hore abwaanku wuxuu ka sheekeynaya arday waxa weeye ciyaarihii nooyo kamid ah waa batarka waa ciyaar sacabka la timo la boodboodo batar baa la yiraahdaa batar beer leela siniqsadiyo waa ciyaar si yar oo degan loo akhriyo oo loo qaado oo lagu huun la dhaqaajiyo dhaanta sawd macaan waa dhaantadii aad garanaysaan oo hele waa dhaantada aad baa u taqaanin kulliyo dhaantada waxa laga yaqaanaa gobolada ismaamulka Soomaalida ee kilka shanaad baa aad looga akhriyo sida caale dhaanta oo kaliya baa aad u qaada murti soocan gaar u leh murti fiican gaar u leh haday Soomaaliland aan nahay murtida fiican baan gaar u leeyahay shahlay sacab qurxoono waa ciyaariyaduna jaan lagu sarjarayo lugtana si fiican la isula helayo saarayda tumatiyo dadka saarku hayees heesaha iyo muusikada jecel heelo maalka soo duda iyo heelo dheer oo dhawaaq ah oo ciyaar ah oo garanaysa waa ciyaariyaduna ciyaaraheena kamid ah hidii dhaqanka heeladu oo dadka ciyaarta badan baa heelo iyo loo bixiya heelo maalka soo dudiyo heelo soo duda xoolaha oo qofka xoolaha la jooga markuu maqla heelada halka laga tumayo uu soo ordaya oo ciyaaraya boqolaal siyaado mid waliba saylici u kala baxa saylicida ayaa ciyaaraheena ugu hidii dhaqansan ugu daaweyn baa la yiri oo wadanka saylic gobol magaalada saylic laga isticmaali jiray saylici baa la yiraahdaa waa hidii dhaqan boqolaal sanadood baa laga joogaa baa intii laga soo dhaxlay dadkii yaqaanay ama keenay wadanka boqolaal siyaado mid waliba sarbeeb iyo sifo gaar leedahay ciyaar kala duwan buu oo mid walba sarbeeb gaar ah oo dadku aanu fahmi karin nin u dhashay luqadda Soomaaliga oo Soomaali ah mooyaan aan cid kale baran karin ayaan leenahay oo lagu yaqaan xarafo saxati iyo aws waa awskaas saxati leeyba meel la yiraahdo kilka shanaad ku taala waxaan loogu bixiyaa awska baadarti eriga saxati waa aws la sameeyo waa aws la sameeyo oo hararka laga sameeyo iyo awsaska kibad saynle iyo xarig kibada lagu sameeyo oo kibada lagu xalgo guryaha sida awska oo kale saasoo kale u kala balaareeyo ilaa guriga lagu soo dadbaa dugsi iyo xarrago dartood harar soo wareegiyo hararkii waa awsaskii nimbas loo yaqaano dadka qaar harar bay yiraahdaan awsas harar soo wareegiyo harar gogoosyo toddobaale lixaale 12 leh waxba la kala yiraahdaa way kala qurux badan yihiin dumarka ayaa sameeya inta aan la guursan ka hor bay si sameeysaa gabadh ama si marka la guursado ayaa iyaga ka sii gaarsiiyana inta raaciya dusha shara la saariyo aqalka dhakada guriga laga saariyo alool soo kulaaliyo aloolkay isu haysa sinta guriga lagu xiro guriga dhinaciisa lagu xirayaa aloolkii iyo awskii udubiyo xarig soo godan buu intaas oo is wada suran aqal laga sameeyo masaf tabaqa la saariyo masaf balaaran oo la saaro tabaqii xoolaha lagu qorto xeero sabiiba iyo gorof xeero macaan oo wanaagsan oo iyo gorofkii caanaha lagu sheenayo xeeradii sabiibta ahayd macaanid ee raashinka udgoonaynaysay kolka lagu rito ama aan xumeynaynin haday dhowr habeen ku jirto ee xulaayay ee dhirta kala midabka laga qorayay baan leeyahay haan saable iyo dhiil waxaan leenahay haan saab lagu dhixrido haya kolka lagu laayo ama awrka lagu xiraayo oo shabaga buu shabag u samaysan dusha sare la saariyo awrka dhakada la saariyo wuxuu yiri sif maroh leh iyo aws geedka marohda la yiraahdaa waa aws sif waa teel marohda iyo siriiga iyo saxatida waa kaymo waxa soo dhan marohduna waa geed laga sameeyo dhiilaha laga qoro dhiilaha laga sameeyo soo qoris maaha oo laf ma geed jiridna maaha laakiin xuleeya caleemo dhaadheer oo dhuudhuuban xuleeya oo laga tolo masafaha iyo biilka iyo hantaba geed qori far iyo suul iyo geedkii qoriga lahaa buule sare loogu qaadiyo qoodis sar walaaqi oo laga qoray buule qodihii soorta iyo raashinka walaaqay dulay hoos israaynay soo dare fandaalkii iyo fandaalka mid laga qoray buule sal balaaran xeerada ama xeerada balaaran laga qoray marka qaar ha samaysan iyo weel sanadii dirteena ah soo baxad ciidiyo sabda dhexdiga haddaad soo baxdo cadceedii haddaad habeenkii soo baxdo aad arkayso wax ku cuni karto
وهبينكينا كعشانيسو صباحنا هذا كويس صبر هبينكي ساعة شريسة ساعة صعطه وحقاضي بالفرطة سيبته ديريا كاريجي سيب لا غير كاريجي ديريا يجي وسيب لا كاريجي يوم معنيه سحوي كاريجي حواريه سئية يكرر كيس صرية لانجروسنا كيلو بعين السيبني سيدا الروح للطابة براي بيقول فردها صوص سيدا الروح للطابة براي قفك سيدا إلاشا فرس كاسي قفك وحل اللي فردها سيدا وكله يدرع ونكسين قفك فوشن وحل يجيب اللي نبى فردها وجورني يبى وكذي نفرس بان فولا يتبع نطقال كي بكون انتباه لمنكي فرس قوتي وحل اللي فرس كي سيبا أركيب وبيدمنكي ساهيب كي وحبتي كل هذا طقال كي نوارد ما هو اللي بعد هو يسي ميت كي سيبا على كلام قفت ninkan wuxuu ku dhacay kob yaro cidla ah oo cidibay helin faraskiisii baa la joogay heliyeenay baa leeyahay naftina way ka baxday faraskii ila waa xoolo oo nafkana hay waxa leeyahay markuu arka lafaha bada qofka inuu ogaanay in qofka la dhintay inta si laakiin uu raaya amase huwi uu xiran yahay naftiisa muuqdaan wejigiisa muuqda foomkiisa tagi maayo baa leeyahay marka farduhu waxay ahaan jireen kuwa caynkaas oo kala ah oo aan qofka hadii dagaal dhaco aan ka tagin hadduu qofka uu taadintana aan ka tagin ilaa la facad ka soo halan qofka oo ciid cunto sida ruux la tababaray qofku sida ilaasha mooyiye tibsimal iyo qarbad mur la sooriyo qarbadkii wax lagu shuban jiray saad kaysha iyo olli wax uu ahaa weel isna wax lagu rito weyn oo balaan tilmaan la igu soociyo ida soo jireeniyo sunnadu weeye dhaqan waxa soo dhameyntaas iyo siyaadaba inta iyo in ka badan ba Soomaali ba iskale dadka kale adeer ma lahayn buuri Soomaali ba tilmaanay u tahay mana sheegan karaan cid kale dugsiyada al irshad school